kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka hadaan oo kale shanta TV aad ka daawataan qodobada warkeenana waxaa ka mid ah Mahad Salaad oo xabsiga dhigay taliye ka tirsanaa gaashaan kadib weerarkii Hotel Xayaat isagoo beegsi ku bilaabay saraakiisha sarsare ee dowladda Soomaaliya haddaba Mahad Salaad oo shaki weyn laga qabo maxaa sababay inuu saraakiisha ciidamada ugu sarsareeyo uu beegsado isagoo ku eedeynaya inay al-shabaab xidhiidh la leeyihiin dhanka kale villa Soomaaliya ayaa ka hadashay sababta aan loo soo saarin war murtiyeedkii shirkii Xasan Sheekh Maxamuud iyo Siciid Cabdullaahi Dane u dhaxeeyay ee albaabadu xidhnaayeen Xasan Sheekh Maxamuud iyo Siciid Cabdullaahi Dane oo kadib doorashadii khilaaf xooggan soo kala dhex galay ayaana ilaa iyo hadda waxyaabo ay ka wada hadleen ana soo saarin haddaba maxay tahay sababtu wararkeena ayaad kaga bogan doontaan qodobadaas iyo kuwa kaloo intaasi ka faahfaahsan ayaad warkeena ku maqli doontaan fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar kambaleelkana fura si aad ula socotid wararka iyo warbixinadan halkan soo gelino aynu ku bilowno wararkeena ee Mahad Salaad ayaa ku bilaabay saraakiisha sarsare ee ciidamada dowladda beegsi kuwaasi oo ka aragti duwan una ka cabsi qabo inay ka hor istaagaan qorshayaasha uu damacsan yahay haddaba Mahad Salaad ayaa xabsiga dhigay taliye ka tirsanaa gaashaan kadib weerarkii Hotel Xayaat daba taliyaha ururka gaashaan uu xabsiga dhigay Mahad Salaad ayaa magaciisa lagu soo koobay Caynte kadib weerarkii ka dhacay Hotel Xayaat ila xog ogaala ayaa sheegaya in sababta ugu weyn ee loo xidhay taliyaha ay tahay inuu toogtay mid ka mid ah shabaabkii soo weeraray Hotel Xayaat oo isu soo dhiibay dowladda waa siday hadalka u dhigeen haddaba Mahad Salaad eedeyntan uu jeedinayo taliyaha ayaa ah mid waxba kama jiraan iyadoo kooxdii argagixisada ee hotelka gashay aan wax laga qabtay iyo wax la dilay toona jirin balse hadda uu taliyaha ku eedeeyey in isu soo dhiibay dowladda inuu toogtay haddaba sida ay sheegayaan Mahad Salaad ayaa intuusan xidhin taliyaha magaciisa lagu soo koobay Caynte waxa uu weydiiyey ayay leeyihiin sababta uu u toogtay ninka waxayna isla iyagu ay sheegayaan inuu sheegay taliyuhu inuu ka cabsi qabay inuu isqarxiyo ninkaasi Mahad Salaad ayaa sheegaya in ninkaasi ay ka heli lahaayeen xogo badan oo ku saabsan sida ay magaalada u soo galeen iyo sida loo qorsheeyay weerarkan haddaba Mahad Salaad oo dhammaan baabi'iyey cadaymihii isagoo oo qaaday dhammaan waxay duubeen CC kaamerada hotelkaasi ayaa hadda ku eedeynaya inuu toogtay askari ka tirsanaa kooxdaasi oo isu soo dhiibay dowladda iyada oo uuna jirin wax la dilay iyo wax la qabtay toona haddaba Mahad Salaad ayaa bilaabay qorshe uu iskaga horleexinayo saraakiisha sarsare ee ka aragtida duwan isagoo ku soo oogaya kiisas noocan oo kale ah Nisa ayaa wajahaysa dhaliilo kala duwan oo uga imanaya siyaasiyiinta oo ku aadan sida ay u maareeyeen weerarkii Hotel Xayaat oo ay ku dhinteen in ka badan 20 qof magaalada Muqdisho oo amnigeedii faraha ka sii baxayo muddooyinkii dambe ayuu haddana Mahad Salaad bilaabay saraakiisha sarsare ee ciidamada inuu beegsado haddaba beegsiga lagu bilaabay saraakiisha ciidamada iyo wixii ku soo biira qodobkaasi wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa dhanka kale villa Soomaaliya ayaa ka hadashay sababta aan loo soo saarin war murtiyeedkii shirkii dhexmaray Xasan Sheekh Maxamuud iyo Siciid Cabdullaahi Dane kaasi oo uu albaabada u xidhnaa labadaasi mas'uul madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib markii uu maalmo ku maqnaa magaalada Garowe halkaasi oo kulamo dhowr ah kula qaatay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dane natiijada kulanka labada mas'uul ayaa ilaa iyo hadda waxaan laga soo saarin war murtiyeed marka laga reebo qoraal kooban oo lagu daabacay barta villa Soomaaliya kaasi oo lagu sheegay in labada mas'uul ay ka wada hadleen xoojinta wada shaqaynta hay'adaha dowladda iyo dardargelinta dagaalka ka dhanka kooxda argagixisada waxaa xusid mudan inay kulamadu ahaayeen kuwa si gaar ah u dhexmaray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Siciid Cabdullaahi Dane isla markaana laga reebay dhammaan wasiiradii la socday Xasan Sheekh Maxamuud iyo kuwa Puntlandba sida uu sheegay Sakariye Maxamed oo ka mid ahaa dhinacyadii uu Xasan Sheekh Maxamuud kula kulmay magaalada Garowe Sakariye oo la hadlay warbaahinta gudaha qaarkood ayaa sidoo kale xusay in kulanka labada madaxweyne looga hadlay arrimo u gaar ah
balse aan looga hadlin danaha Puntland iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya midna. Sidaa darteedna loo ogaan waayo waxyaabihii ay ka wada hadleen labada mas'uul, isagoo xusay inayna jiri doonin wax war-saxaafadeed oo ka soo bixi doona kulamadaasi. Labada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Siciid Cabdulaahi Deni ma aysan soo bandhigin wax ajenda ah oo ku saabsan kulamadooda, maadaama ayna jirin khilaaf xooggan oo xilligan kada u dhexeeya dowladda federaalk iyo maamulka Puntland, balse uu khilaafku u dhexeeyo madaxweyne Siciid Cabdulaahi Deni iyo Xasan Sheekh Maxamuud. Taas ayaa sababtay in war murtiyeed laga soo saari waayo, iyagoo kulanka uga hadlay dana u gaar ah iyo khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeyay labada mas'uul. Dhanka kale, warbaahinta oo la xidhiidhay Villa Soomaaliya ayaa mas'uul ka tirsan waxa uu sheegay inaysan jirin khilaaf iyo colaad markii horeba u dhexaysay labada dhinac, sidaa darteedna ayna jirin baahi loo qabo in war murtiyeed la soo saaro. Waa sida uu hadalka u dhigay sarkaalkan ka tirsan Villa Soomaaliya. Madaxweynuhu wuxuu Puntland u tagay inuu kala hadlo wada shaqaynta labada dhinac iyo xog taabasho ah oo uu qabay Siciid Cabdulaahi Deni oo uu ka qanciyay madaxweynuhu, ayuu yidhi. Mana jirto wax baahi ah oo loo qabo war murtiyeed, ayuu yidhi sarkaalkan la hadlay warbaahinta. Haddaba labada mas'uul ayaa wax xog oo rasmi ah aan laga haynin ilaa iyo hadda, iyagoo waxyaalihii laga hadlay dhammaan uu labadooda u gooni yahay. Marka laga reebo kulamada ay yeesheen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdulaahi Deni, ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in Puntland ay ka aqbashay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inay martigeliso shir wada hadal ah oo ay isugu imanayaan madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada. Si kastaba, madaxweynaha Puntland ayaa hore u sheegay inayna ku qanacsanayn sida uu wax u wado madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, iyaga oo maamulka Xasan Sheekh Maxamuud dusha u saaray wada shaqayn la'aanta. Dadka qaar waxay sheegayaan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo horay Siciid Cabdulaahi Deni ballamo uga baxay, inuu hadda Siciid Cabdulaahi Deni uu hadda cadaadis xooggan iyo caqabado hor leh kala kulmayo Xasan Sheekh Maxamuud. Qodobkaas ayaa warkeena ugu dambeeyay. Sidaas iyo nabadgelyo.